wasiirkii hore qorsheynta Soomaaliland ee dawladda Axmed Maxamed iyo Maxamed Ibrahim Aadan Qabyo-tire oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xusbiga kulmiye ayaa sheegay in loo diiday ka qabashada lacagta ugu tartamayay musharraxa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xusbiga kulmiye isagoo hoosta ka xariiqay inuu buuxiyay shuruudihii looga baahnaa musharraxa u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xusbiga xarunta xusbiga horteeda waxa sidaad maqlaysay baryahan badee xisbiga waxaan islaa in badan u xil qari laakiin waqtigeedii bay soo gaadhay waa arkaysan khamiistii baan imi waxaan doonay inaan araajideedii waqtan shuruudaha la igu xidhay shuruudihiina waan soo buuxiyay waxaan u imi khamiistii askar baan halkan ugu imi askartii way iga celiyeen albaabka markii dambana gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xinif baa intuu soo kacay albaabkii hoosta ka xidhay aad baan u garaacnay qoladii gudaha way isqabsadeen guddida qabanqaabadu waxay isku qabteen laba ay u kala qaybsameen inuu soo dayno iyo inuu soo dayn ilaa saacad baan la joogay war lacagtan iga qabta araajidan iga qabta waxaan u tartamayna waxa gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye ee ka tirsan golihiisa dhexe ahay garan maayade wax aan ama de ujeedo ama xeerka xisbiga de hadaan intii imika la bedelin wuxuu ahaa xisbi dimuqraadi cid kastaana u tartami karto laakiin waan dul qaatay meediana uma sheegin cidna uma sheegin maalinta hore meesha askar baan riixriixday waana loo diiday inaan dhiibno lacagtiina la iga qabto markii dambe aduna baa soo baxay Axmed Cadarre dibadda igula hadlo wuxuu iska tag anaga soo dhamaysan anaga isaynay kadib markii dambe waan galo waraaqahayga iyo waxaygi bay eegeen check baan u dhiibay checkina waxay yiraahdeen ka qaban mayno kaalay sabtida waa kan qof kama joogo meeshana waa cidla waxaan arkayaa ujeedo gaar ah aniga leeyahay leeyun ama deegaan ahaan dadka ka soo jeediya annagaba naloo jeedo way hoggaanbaan meesha hoggaanka waxaan ku lahayn hal meel waxaan ku lahayn xogeyaha guud ee xisbiga waxa laga dhigay xogeyaha guud ee xisbigana nominated in la magacaabo agaasimo waxeeda xaq baan u leenahay inaan hoggaanka marka u tartanno xeerka xisbigana meel ay kaga qorantay reer hebel baa halkaale iyo reer hebel baa halkaale anagu garan mayno magacyo loo kala sameeyay waa ayaan darro weyn oo xisbigii kulmiye ku habsatay in la yiraahdo cid baa loo xidhayaa iyo soo gali meysaan laakiin libaax laba raqood lagama wada kiciyo madaxweyne Muuse Bixi hadii aan xukuumaddiisii ku ixtiraamnay ragaygii la shaqeeyay inuu haddana xisbigii agtiisa soo mari meysaan ka yeeli mayno waa sida labadaba waan maartay hadii tobankii kuwa kaasay ugu xidheen waraaqana waa kan maalinta hore kaash ka soo dhigeen kaashina ay garan maayo shadada garan maayo ma garanayo inaguna wareegi laakiin waxaan leeyahay maxaa geed la beero gunta laga biyan jiray gacmuhuna ka daaleen markuu gaaray heerkii ubax guudka qariya laga guran lahaa midho kii ku gaajo bixilay intuu guduma ula tagay gamka siyaxidada ilaa good abaal ma leh good ilaa abaal Maxamed Qabyo-tire RTV hargeysa